بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad uga xunnahay oo aan ka tacsiyeynaa oo ka tiiraaniyoonayna dhacdadii aad u naxdinta badneed oo ka dhacday tuulada Gololey oo ka tirsan degmada Balcad. dhacdadaas oo 8 shaqaale samafalayaal oo caafimaadka ka shaqeeya lagu dilay. run ahaantii dhacdadaas waa dhacdo uguba intii wadankan dhibaatadu ay ka jirtay dadka badan waa dhinteen laakiin samafal 8 qofood oo inta la soo aruuriyay hal meel lagu dilay haddana hal meel la soo dhigay waa dhacdo uguba waa dhacdo aad u xanuun badan maadaama ay saas u xanuun badan tahay waxa la xanuun eg ama ka xanuun badan dadkii falkaas geystay in loo sanduugo dadan muxuu ahay shaqul ku lahayn muxuu ahay tuhun la geliyo si aysan taas u dhicin. waxaan magacaabay guddi heer wasiir iyo heer maamul isugu jira maamulka shabeellada dhexe oo ka kooban wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka cadaaladda iyo wasiirka madaxtooyada oo xogeyn u ah gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe iyo xildhibaanka deegaankaas ka soo jeeda oo ku metela baarlamaanka Hirshabeelle. waxaan rajaynaynaa guddigaasu inay xaqiiqada heli doonaan baaritaankoodana bilaabi doonaan sida ugu dhaqsaha badan. waxaan farayaa guddigaasu muddo 30 maalmood inay xaqiiqada jirta oo qoraala oo tafatiran u soo gudbiyaan hoggaanka Hirshabeelle si dhacdadii dhacday xanuunkeedu wixii dhacay waa dhaceen ay mataqaanaa ay dadkii ku sabraan ku qancaan. aad runtii uga xunnahay arintaas. waxaan ka codsanayaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta dadkaas inay Ilaahay u baryaan samraan kana warsugaan go'aanka guddigaas oo soo saari doono. والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.